بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. أخيارته waxaan jeclaystay inaan halkan ka soo jeediyo dhowr qodob oo aan u arkay inay aad muhiim u yihiin sida aan channel ognahay waxa weeye qof walba bini'aadam uu jecel yahay inuu horumar gaaro ama uu guul la taaban karo uu sameeyo oo nafta bini'aadamka Ilaahay wuxuu ku dhaleeyay haddaba qofku si uu u gaaro guul jawaanibta looga baahan yahay inuu waxa weeye qof bini'aadamka uu iska dhiso baan dhowr jaanib ka soo qaadanayna waxay yiraahdaan culimada majaalka ka warrama afar jawaanib baa jira oo aad muhiim ah qofka bini'aadamka ah inuu iska dhiso jaanibka u horeeya oo aan runtii u maleynayo inuu muhiimsan yahay waa jaanibka ruuxiga jaanibkaas waxa weeye jaanibka ruuxiga qofka bini'aadamka siduu rabbiga abuuray oo waxa weeye ula mucaamil lahaa jaanibkaas waxaa la rabaa inuu qofku iska dhiso oo uu ku dhiso cibaado iyo camal suuban iyo waxa weeye iimaankiisa inuu qofku xoojiyo jaanibka labaad waxa weeye waa alcaqli weeye waa caqliga qofku siduu ku dhisi karaa caqliga qofku wuxuu ku dhisi karaa inuu wax akhri sameeyo inuu wax daalacasho sameeyo inuu maskaxda daaliyo oo waxa weeyaan uusan qof kaslaana uusan noqon waxa weeye qof wax akhriya oo wax daalacada uu noqdo caqligana saas buu qofku ku dhisi karaa runtii waxaa jirta muquulad uu yiri nin odaya wuxuu yiri haddii anigoo 40 jir aan ku qowlo ama aan ku hadlo waxaan 20 jirkaygii aan ku hadli jiray ama aan ku qowli jiray ama aan samayn jiray runtii waxaa iga khasaaray halkaas 20 sano oo cumrigayga marka yuusan 20 sano cumrigayga naga khasaarin caqligana aan kornino waxaa la rabaa maalinkii tagtay maalinka imaanaysa waxa weeye inaad waxa weeye wax ku kordheen bartaada inaad joogto lama rabo jaanibka xiga waxa weeye jismiga qofku waxa weeyaan jirkan uu Ilaahay siiyey inuu kobciyo oo waxa weeyaan uu caafimaadkiisa ka shaqeeyo sidoo uu kobci karaa qofku inuu jir sameeyo caafimaadkiisa inuu ku dadaalo oo cunto uu cuno waxa weeyaan caafimaad leh jaanibka u dambeeya oo aan ku soo gabagabeynaya waxa weeye waa caadifada qofku dad bini'aadam ayuu la xiriiraa reer xaas walaalo asxaab waxaa la rabaa dadka inuu waxa weeyaan uu si wanaagsan ula dhaqmo caadifada asaga iyo qofka dadka kale u dhaxaysa inay noqoto caadifad isfahan isjacayl waxa weeyaan wada tashi iyo wada hadal ku salaysan ee aysan noqon caadifad kala tag iyo xumaan iyo buuq ku salaysan intaasaan kusoo gabagabeynayaa aad baa u mahadsantihiin. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.